magacaygu waa Cabdikariin Cumar Macalin waxaan ahay daadiyaha barnaamijka Hilo oo bishii 2 jeer aad kala socotaan idaacadaha kala ah Radio Jowhar, Radio Balcad iyo waliba Radio Wadani ee magaalada Beledweyne. Sidoo kale waxaad daawadayaasha ku nool geyga Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada Hirshabelle ay nagala socdaan barta Facebook aynu ku leenahay ee Hilo. Hilo waa barnaamij dood wadaag ah oo aan diiradda ku saarno xalinta khilaafaadka, isbedelka cimilada, nabadeynta, fatahaadaha, ka hortagga muqaadaraadka iyo waxyaabo kale oo aan isleenahay bulshada laga maarmaan ay u tahay. Hilo oo ah barnaamij bishii 2 jeer ka baxa idaacadaha aan soo sheegnay ayaa waxaa laga dhageystaa riwaayado xiiso badan oo ay geliyaan laba ka tirsan shabakada nabadeynta Hirshabelle gaar ahaan Cabduqaadir Cabdullaahi Colaad iyo waliba Ayaan Axmed Cali oo ku kala matalaya Hanad iyo Hibo. Riwaayadaasi ayaa ah mid tusaale dhab ah u noqotay shacab fara badan oo ku taxan barnaamijka Hilo. Sababta ugu weyn ee barnaamijkan loo abuuray ayaa ah in shacabka Hirshabelle lagu fahamsiiyo dhibaatooyinka khilaafka leeyahay iyo waliba sidii ay markaasi ay u ogaan lahaayeen khataraha isbedelka cimilada caalamka farabacaan ku haya Soomaaliyana ay aad ugu nugushahay. Hilo oo 2 sano la soo dhaafay si toos ah shacabka ku nool Hirshabelle ay kala socdeen idaacadaha ku kala yaala magaalooyinka Jowhar, Balcad iyo Beledweyne ayaan sahan aan sameynay ku ogaanay in dhageystayaasha aad u fara badan ay ku qanacsan yihiin iyagoo riwaayada Hanad iyo Hibo ka dhageystaan tusaalooyin iyo talooyin wax ku ool aad u fara badan. Waxaa hubaal ah in beelo walaalaha oo dhowr jeer khilaaf ku dhexmaray wacyigelin ay u noqotay riwaayadaas kadib markii ay dhageysteen riwaayada Hilo iyo guud ahaan barnaamijka intiisa kaleba. Hilo muddada uu socday waxa uu sidoo kale digniino badan uu ka bixiyay fatahaadaha soo noqnoqday ee webiga Shabeelle iyadoo dadweyne aad u fara badan oo ku nool hareeraha webiga jiinkiisa ay digniinahaasi qaateen kuwaas oo ka shaqay fatahaada webiga Shabeelle si dhibaato aysan ugu soo gaarin. Mas'uuliyiin kala duwan iyo aqoon-yahano aan ku martiqaadnay dhowr jeer ayaa codsaday in barnaamijka la sii wado si bulshada ay wax badan uga faa'iideystaan. Xaqiiqdii tan iyo markii la abuuray barnaamijka Hilo wuxuu noqday barnaamij ummadda Soomaaliyeed ay aad u tixgeliyaan uguna taxan yihiin gaar ahaan kuwa Hirshabelle. Dadweyne aad u fara badan oo ku nool dalka dibaddiisa kuwaasi oo kala socda barnaamijka Hilo barta Facebook aynu ku leenahay ayaa u arka barnaamijkan mid qiimo weyn u leh bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Hirshabelle iyagoo codsaday in bulshada loo sii baahiyo xilliyo kala duwan maadaama bishii hadda 2 jeer uu baxo. Waxaan jecelnahay inaan halkan ugu mahadcelino dhammaan dhageystayaasha iyo daawadayaasha barnaamijka Hilo kuwaasi oo falcelin muuqata ka sameeyay barta bulshada aynu ku leenahay ee Hilo. Hilo waa barnaamij aan wada hamuun qabno. magacaygu waan Istaxan Maxamed haba dhageystaan barnaamijka Hilo sida barakacyaasha fatahaadinta iyo isbedelka cimilada iyo xalinta khilaafaadka. Waxaan jeclahay in lagu soo daro isdhexgalka bulshada iyo wacyigelinta waxbarashada. magacaygu waa Xasan Maxamed waxaan ku suganahay degmada Balcad. ma dhageystaa Radio Balcad si kala socota barnaamijka Hilo? waa dhageystaa aad u dhageystaa walaal xariisana waxaan ka dhageystaa Radio Balcad. maxaa ka mid ah waxyaabaha ka dhageystaa? waxaan ka dhageystaa barnaamijka fatahaada oo beeraha biyaha naga macnaha ay fatahaadan ay webiga nagu sameeyay oo beerihi tacabka ay ku nagu yaalay ay biyihii gooyeen hay'adaha gargaarkana ay macnaha noo yimaadeen wax noo qabteen arrimahaas kala socdaa. waxaan ka dhageystaa barnaamijka Hilo fatahaadaha cimilada kulley waxyaabo badan oo saas ah. waxaan jeclaan lahay in waxbarashada moogtahay la ta'kiidiyo xoog la saaro lagu soo daro hore u wadaan. bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Cabdinaasir Xasan. barnaamijka Hilo waa si fiican u dhageystaa bilixta inuu barnaamijka Hilo fasahaadaha oo meelaha barakaca iyo daadadka iyo dadka dhiirigeliyaan waxyaabo badan ka dhageystaa. in la sii wado hore u sii kordho kor u soo cadheela keep going. waxaan jeclaan lahaa barnaamijka in lagu soo daro yani waxyaabaha maandooriyaha maadaama ay dhalinyarada u bateen inay maandooriye isticmaalaan. walaal magacaada marka hore? magacaygu waa Maxamed Axmed Ismaan. waxaa ku noolahay degmada Balcad. waxaa ka mid ah dhageystayaasha barnaamijka Hilo marka
halkee ka dhegaystaa barnaamijka wallaahi waxaa ka dhegaystaa degmada balcad ka dhegaystaa barnaamijkii dhow ma raadiyo amaad kala socotaa mise qaybta facebook mobilada yani kala socdaa marka waxaa jeclaan lahaa barnaamijka in la soo badiyo yani barnaamijyo badan la keeno yani soo ay sidaas ka daran in la hooyo magacaygu waa xasan cali oo degan balcad waxaan ahay dhegaystayaasha raadiyo balcad waxaan ka dhegaystaa barnaamijka hilow barnaamijka hilow wuxuu ahay barnaamij ku baxayay 3 qaybood xalinta khilaafaadka fatahaadaha iyo isbeddelka cimilada wuxuu ahay barnaamijkaas barnaamij mowduuc aad u fiican oo ahay oo in lagu baraarujiyo dadka oo aad u mudnaay maadaama uu barnaamijkaas barnaamij fiican ahay waxaan jeclaan lahay in la sii kordhiyo oo la sii socodsiiyo maadaama oo waxyaabaha uu ku saabsan yahay waxyaabaha xilligan 2024-2025 ku saabsan oo yahay maadaama fatahaado badan ay jiraan dagaal beeloodyo badan jiraan cimiladanu ay isbedeshay oo jirto ceeryaamo fara badan iyo waxyaabo jiraan dadku in la sii wacyigeliyo aad u fiican tahay waxaan jeclaan lahay barnaamijkaas in hore loo sii wado laguna soo kordhiyo dood cilmiyeedyo dadka khubarada ah oo ku barteen isbeddelka cimilada iyo fatahaadaha sida looga hortagi lahay webiga hadoo kale fatahaado fara badan oo sameeyay waxaana sabab u ah in webiga oo caradiisa kor u soo kacday ee aad u buuxsantay marka xilliyada webiga gurina in webiga la qodo si oo ay fatahaad u yaraato السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وسدحن ويوسف عيموي روبلة أو كنا دقمة بلعت قبل شبيلة دحى أمير شبيلة waxaan aad markaas u dhageystaa warbaahinta balcad oo markaas degmada kaliya ku taalo isla markaan aan kala socdo barnaamijka Hilow oo bishii la marso galo barnaamijka Hilow waa barnaamij aad markaas u wanaagsan isla markaan waxyaabaha looga baahan yahay degmada oo ka hadla sida markaas fatahaadaha اسمين hirshabelle sameeyaan oo kale isbeddelka cimilada oo kale iyo xalinta khilaafaadka oo kale marka maadaama saas ay tahay ani ahaantii waxaan jeclaan lahaa in marka lagu sii kordhiyo barnaamijka hadlaya maandooriyaha maadaama dhalinta Soomaaliyeed hadda badanaa maandoori isticmaalaan in barnaamij lagu soo daro oo si markaas u kala yaraato macnaha maandooriya dadka isticmaalayaan waxaan kaloo markaas jeclaan lahaa markaas dadka oo barkacayaasha kale haddii lagu soo daro marka aad inuu barnaamijka Hilow si socon jeclahay aad oo markaas ay baqad ka dhigaysano barnaamij mawduuc macnaha markii mawduuc laga dhigo mataqaana oo taxana mataqaana wuxuu noqonayaa barnaamij oo ku saabsan in mataqaana wacyigelin oo toos noqon laakiin riwaayadahan loo sameeyo ayadana isku wacyigelin waa riwaayadahan iyo macnaha mawduuc laakiin muhiimada in lagu soo daro waa muhiim macnaha waxa waa aad waxa waa dhalinta Soomaaliyeed mataqaana badanaa kiiso kordhabo oo si isticmaalaan moogta marka si loo si u kala yaraadaan dhalinyarada mataqaana si u kala yaraadaan maandooriya u kala yaraadaan in markaas lagu soo daro barnaamijkaas wacyigelin oo noqoto aad u jeclahay idaacad balcad ka dhigaysta mar walba macnaha marka soo gasho macnaha laba mar bish soo gasho waan ka dhigaystaa radio balcad kala socda ana goobta shaqo jooga meehana ka dhigaystaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga la yiraahdo abtiyow barnaamijkan laga hirgelinayo degmada balcad aad iyo aad waa horumar degmada ay gaartay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin hadduu alla yiraahdo radio balcad si fiican u dhageystaa aad iyo aad si fiican waa ula socdaa waxyaabaha ka mid ah aan ka dhageysto waa waxa waaye cimilada ambe yani xilliga hadda lagu jiro kala roobka iyo fasahaadaha iyo sidaan oo kaleente iyo webiga Shabeelle oo kaleente markay soo fasahaadaan oo kaleente alxamdulillah dadkii yani masaakiinta barakaca waxna ayna iska haysanin abaar fara badan ay jiraan yani dadkiina isku soo wadankiina dhinac kastaba colaado ka jiro haddana wadankina shaqo la'aan ay iska jirto marka aad iyo aad aan ugu mahadcelinahay barnaamijkan aad daadihineysaan horena xalinta khilaafaadka oo yani roobka webiga waxaa jeclaan lahaa in lagu soo kordhiyo in howlaha aad iyo aad loo sii kordhiyo macnaha waa ka dhigaystaa maxaa ka mid ah waxyaabaha ka dhigaysan sida fatahaada ya iyo barakacyada iyo dagaalada ya iyo barakacyada iyo dagaalada iyo waxaasaa ka dhigaystaa iyo aniga oo waxay intee kala socotaa ma raadiyaa ka dhigaystaa mise Facebook raadiyaa ka dhigaystaa hadda marka hore raadiyaa ka dhigaystaa marka hore raadiyaa ka dhigaysanay haddana Facebook ka dhigaystaa kala socotaa kala socdaa ku baxay raadiyaa ka dhigaystaa magaciisa raadiyaa ka dhigaystaa waxa waaye radio balcad 87.9 megahertz السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا دلمر عبد القادر دلمر
kamid ah ku degan degmada Balcad ma sha Allah taban waqti kasta waa dhageystaa aan Jaanis ahayo waa radio Balcad aad waa barnaamijka Hilo wuxuu ka helaa laga dhageystaa amal ka hadla jabiyada cilmada iyo xalinta khilaafaadka iyo waxyaabo badan oo ma sha Allah aad ka dhageystaa jirto waxa rabo in wacyigelinta soo kordhiso wacyigelinta waxbarashada caafimaadka iyo waxyaabaha qaar inay oo ku xisaabsan waxbarashada barnaamijkan la sii wada jecelahay oo intaas sano socdo konton sano ina socota jecelahay magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Abuukar Maxamed radio Balcad aad u dhageysiyaa si fiican barnaamijka aan kala socdo waxa kamid ah macna barnaamij ay wadaan oo Hilo la yiraahdo taasoo macnaha looga faalo inta badan macnaha looga faaloodo daadadka iyo barakacayaasha oo markaas degmada maanta kasoo bixi waxa kamid ah anigu ka faa'iideysanay macnaha dagaalada sokeeye hababka aan hortagi lahayn iyo ka hortaga macnaha fatahaadaha iyo dadka degmada jooga maanta ee ku soo barakacay qaabkii macnaha loo maareyn lahayn in la kordhiyo barnaamijka la kordhiyo la sii la wajbaaro assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh magacaygu waa Ustaad Abdulqaadir Maxamuud Maxamed kana mid ah dhageystayaasha radio Balcad kana dhageysta barnaamijka Hilo walahi waxaan ka dhageystaa isbedelka cimilada xalinta khilaafaadka iyo fatahaadaha walahi waxaan jeclaan lahaa oo wali aad iyo aad u bogaadin lahaa aan codsanaan lagu soo kordhiyo wacyigelin dhanka waxbarashada walahi barnaamijkan waa barnaamij horta aad iyo aad u fiican waxaan si jeclaan lahaa mar walba in mataqaana la sii horumariyo oo la sii wado in halkaan halka sare la sii gaaro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo ah Maxamed Cali Maxamed aad weyn barnaamijka Hilo waxaa ka mid ah barnaamijka fasaadaha iyo cimilada iyo khilaafaadka waxyaabaha maandooriska in macnaha lagu soo kordhiyo oo dalka macnaha dhibaatooyin barnaamijka in hore loo sii wado assalaamu calaykum anigoo magacayga Maxamed Maxamuud Faarax Ilowle oo ku nool degmada Balcad radio Balcad waa dhageystaa ma sha Allah aad iyo aad waa la socdaa macnaha waxyaabo ku dhageysanaa fatahaadaha webiga Shabeellada Dhexe iyo khilaafaadka oo cimilada iyo cawd biisna aga dhageysana waxa jalaala in la soo kordhiyo maandooriyaha dhalinyarada xaqiisina la hadlo maandooriyada la soo kordhiyo jalaalaha oo idaacada oo safan oo la faafiyo idaacada Balcad noo sii weyneeyo in la sii wada si jalaaleen joojis qabdaro ma fiicno tan ay u sii manaafacaadaan maaragtay wuxuuna qayb ka yahay in geedahan ay u jeedid aad ku quruxda badan waxaan ku sugannahay beerta loo soo dalxiis tago ee ku taala degmada Balcad oo uu hirgeliyay maamulka degmada Balcad oo kaashanay qaybaha kala duwan ee ku dhaqan bulshada degmada Balcad waxa halkaas nagu soo dhaweeyay agaasimaha waaxda dalxiiska degmada Balcad Cabdullaahi Cali Maxamed Shuuriye balka waran beertan loo soo dalxiis tago sidee ku hindisteen agaasimaha oo maasan tahay faahfaahin kooban hadii aan ka siiyo beertan ay u jeedid beerta ugu badan oo dalxiisayaasha Soomaaliyeed iyo ama bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka iyo qurbo joogta halka meesha ku soo dhaweyno waaye beerta hadda ugu muhiimsan oo laami u dhow beertan waxa u jeedaa in ay 30 iyo dhowr geed oo cambe aad u qurux badan ay leedahay waxaan aad halkan ugu mahadcelinaynaa abayaasheen oo soo gaarsiiyay geedahan noo talaalay maanta aan ku harsanoono harkan quruxda badan waa u jeedaan geed aad u qurux badan cambaha dhulka iska soo dhacayo iska cuneedid aan cunno kale u baahnayn in meeshan laga helayo annagana waa u jeedaa waxa waaye inta aan ku kari karno ha ahaato mooski ha ahaadaan geedo yar yar oo inta anaga tabarteen ah in aan talaalnay si caruurteena ay ugu sii faa'iideystaan dhaxalka ee noo keeneen maaragtay wadna anagana maaragtay in aan wax ku tiri karno inta wax ku tiri karno in aan ku tarno waa meel qurux badan waa dabcan meel loo soo dalxiis tago bulshada isugu far badan timaado maalmaha khamiista iyo jimcaha sida aan maqlay saacadee waxaa jiro taas bedelkeeda dad fara badan oo ay ku mashquulsan sidii geedaha oo ay ugu soo saaran lahayn iyagana qodiyoonkooda sidii dadka dhuxusha jaro kale qodobkaas qodob aad u muhiim waaye dadka inta badan hadda anaga ka maamul ahaan gudoomiyaha degmada aad ay ula dagaaltamay in maaragtay dadka in ay geedaha maaragtay jaraan dhuxul iyo waxaas ka sameeyaan aad ula dagaaltamnay maamulka ugu horeeya gudoomiye Qaasin haddana waxa waaye bulshada Soomaaliyeedna waxaan leenahay walaal geed aad harsanaysid ka qayb qaadanayo isbedelka cimilada wax wanaagsan waaye in geed aadan maaragtay jarin waxa laga baahan yahay geedkaas soo ku bixi lahaa inaad ka shaqeyso
geedaha yaryar oo maaragtay dhibaaya inaad ka wareejiso waraabiso si dadka iyo deegaanka ay ugu faa'iideystaan marka waxa waaye wacyigelin baa jirtaa oo dad dhalinyaro ah oo ka wacyigeliyaan in dhulkii geedaha ku yaalo quruxda badan in la jaro in aan geed anaga talaalna degmada Balcad ahaan geed inaan talaalna maahane geed aan jarno ma jirto insha Allah tusaale waxaan ka imid magaalada Muqdisho waxaan u soo dalxiis tagay degmada Balcad gaar ahaan beertan quruxsan ma jiraan wax qarash oo la iga rabo mise waan iska soo dalxiisayaa bawtigaan soo qaadanaya magaalada Muqdisho ayaan laabanaa waxa anaga ugu doonahay deegaanada kale iyo degmooyinka kale waxa waaye qofka dalxiisaha oo meesha soo aadayo wado barista wax laga ma qaado beeraha oo soo tagay wax laga ma qaado hal shay bis inaad ma aragtay manaafacaadka meesha ka baxay inaad bac ku arursato banaanka la aadalay la diidaa maane inta kale waa free yaa idinka bixin marka hadda tusaale motor ayaa beerta dhinac ka saaran tigi doonaa qarashaadkan yaa idinka bixiyay qarashaadkan jaabkeena anaga ka dabarnaa waxa uu dabarnaa waxay tahay meeshan mustaqbal iyo aayatiin la ka rajeynona geedahan hadda u jeedid maanta dalxiisayaal imaanayaan hadda dhaano biyana aan waraabinin motorkan aad daarin geedii waa qalalayaan dad noo imaanaya ma jiraan saas la aweed hadda inta shaqada ay ka bilaabaneedo annaga shaqadaas iyo waxaas wadna qarash la gelinooyaa markii ay cagaha is dhigato hoosh dhan ay dhamaato markaas kadib waa qorshe laga dejinaa si dalxiisayaasha imaanayaan Balcad dabcan beertan kale kuma taalo beeraha kale dabcan sababaha dadka aysan u tagaynin oo kale free u tahay waxa la igu sheegay inay dhinaca ammaanka tahay si fiican marka beertan waa booliiskii waa joogaan meeshan ciidankii ilaamiye ammaanka oo dhan magaalada meesha kaliya maanta la isdhigi karo oo waxa waaye dalxiisayaasha aad u fara badan imaadaan amnigooda 100% looga taxadiro meelahan oo kale taa waaye iyo beeraha ka agdhow 15 kilomitir magaalada isku war waa amni khaasatan beerta waxa waaye waxay ugu doontaa beeraha kale waxa waaye cambaheeda iyo macadeeda dhan waa leedahay marka xilli walba daryeelasha marka hadda xilligan lagu jiro xilli roobaadka ma aha haddana xilli kuleelaha waaye haddana geedihiina waxa aragtay aad ay cambeeyeen u leeyihiin taas waxa suurtagal oo soo biyaan wabiga ka imaaday oo nimcada Ilaahay Rabbina siiyay tahay in ma aragtay biyi fartaas xagaas laga soo jeexo motorka loo daaro biyi la soo bixiyo shidaal maalinta qarashan caadina meeshan ku bixina aradan halkee laga keenaa aradan waxa laga keenaa magaalada waxa loogu talagalay aradan meeshan in waxa shaqada sida ku sheegay in laga bilaabo shaqadeeda ma aragtay la gudagalo laga sameeyo serviceyada aan ku sheegay si ma aragtay dadkii soo dalxiistay macnaha aan ka kaafino waxyaabay u baahan hadii aan hool service walba hadii u baahan yihiin hadii hoolal shiraac hadii u baahan yihiin meel carruurta ay ku dhigay iidaha soo socda waxaan rajaynaynaa carruurta magaalada Muqdisho jaam hoteelada ugu noqdeen in nafiskan ay dareemaan meeshan ay imaadaan insha Allah waa aragtaa dhirtan dadaal badan waxaan ku wadnaa si ay u soo laaban lahayd waa biyaha hadda u jeedid farta soo baxday biyaha intay toos soo imaanayaan dhurtan waa qaleel ay noqotay marka waxaan rajaynaynaa insha Allah dib in ay soo laabato waa shaqo adag aan gelinay marka waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala inay dib u soo laabato si horumarka iyo nasiinada iyo neecawda xagan dadka ay soo dabaalaan ay soo nastaan insha Allah hawlaha ka socda hadda aragtaa geedaha waa jarmayaan sana dada aad u qalalayeen ka aan siisay saacada degmadan Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ka baxa hal raadi ayaa ku yaal waxaana ka baxa barnaamij loogu magac daray inkastoo raadiga uu barnaamijyo fara badan diiyo haddana waxaa ka baxo barnaamij la yiraahdo Hilow adiga ma ka mid tahay dadka ku taxan ee barnaamijkaas dhageysta waa ma santa ayaa simay barnaamijka Hilow su'aal muhiim ah ay weydiisay oo ah Hilow inta aan ka warqabo waxa u maleynaa bishii 2 mar la soo daayaa waana daawada waana dhageystaa yacni bulshada Balcadna aad ugu taxan yihiin wuxuu ka hadlaa xaalufinta dhirka fatahaadaha waxyaabo muhiim ah oo macnaha bulshada ka hortaga xaalufinta dhirka ayuu ma aragtay barnaamijkaas soo daayaa bulshada Balcadna aad ay u diirsadeen bishii 2 mar la soo daayaa run ahaantii waa wax loo baahan yahay deegaankan iyo dadkaanba in la dhiirigeliyo oo ma aragtay wax loo sheego ma aragtay laga hadlo waxyaabaha qatarada ku ah xaalufinta dhirka haday ahaato fatahaadii wabiga haday ahaadaan aad ay u diirsadeen bulshada Balcad waxaan leenahay
tiimka ku shaqo leh oo arrimahaas gacanta ku haayo waa mahadsantihiin bulshada balcad warbixinta aa soo gudbinaysa ma jiraan waxyaabaha uu ka hadlayo barnaamijka wuxuu ka hadlaya isbeddelka cimilada arrimaha xalinta khilaafaadka fatahaadaha nabadda kusoo rogmaday xalinta nabadda marka ma jiraan waxyaaba ka mid ah ee adiga kusoo jiitay oo riwaayadda hilow aad ku dhex dhegaysatay aad iyo aad waxyaabo badan aa ka mid ah horta Soomaali waxay dhahdaan nabad aan naas la nuuga leh deegaanadan hadda u jeedid iyo beertan aan ku sugannahay meesha ugu horeedo maaragtay amnigeeda 100% oo yahay dadkii dalxiisayaasha imaanayaan madaxda ugu sarreeyay imaanayaan taas waxay daliil u tahay nabadda wax weyn inay tahay nabadda shay la heli karin inay tahay nabadda inay qaali tahay kooxaha nabadiida waa beeraha iyo maaragtay Basra iyo eriyada Balcad meelaha ugu quruxda badan oo ku joogaan weyn isku dayaan in maaragtay nabad ay qalqalgeliyaan dadka damaashaadka iyo farxadda ay qaadanayaan ma ku faraxsano macnaha laakiin alxamdulillah ciidamada booliiska ha ahaadaan militariga ciidamada qalabka sida dhamaan ee degmada Balcad ku sugan ayaa ka hortago mar walba u taagan inay deegaankan nabad inay ka dhigaan arinta ugu muhiimsan oo soo jeeditana taas waa aad ma santahay waa kaaga mahad celinayna mid labaad dadkan hadda qaarkood meeshan taagan ee fadhiyo baawarkan wada socota qaarkood waxay isugu jiraan filay qurba joog qaar dalka dibadiisa yani waxa u aaday nafis inay u doontaan oo maarad ka soo waayay beerahan ay geedahan cambaha hoostooda waqti u qaadanayaan ha dad kale oo iskugu jira deegaankan oo maaragtay geedahan hoostooda imaadeen hadda waa aragtaa laamiyada iyo geedo waaweyn kuma yaalo marka meesha maadaama xilli kululaad ay tahay dadkan meeshan ay ku harsanayaan wala ugu dambeyntii barnaamijkaas aad dhageysatay hilow ma jiraan wax fikir aad ku soo biirinayso oo isleedahay barnaamijkan waxa uu ka maqan yahay fikir aad ku soo biirinayo ma laha waxaan dhihi lahaa arintaas si laba jibaara waxaan jeclahay ka codsanaynaa maamulka sare bisha 2 mar la isku dayaa in hal maalin kale uu yaraan lagu daro agaasimaha waaxda dalxiiska degmada Balcad Cabdullaahi Cali Maxamed Shuuriye Cabdullaahi waa maasantahay sida aad noo soo dhaweysay waan kaaga mahad celinaynaa maasantahay hablagu xaliyaal hayne dadyo